dhalinyar waxa casrigan soo saaray dabcan ma aha dhamaantood mar walba lama tacmiiminayo laakiin waa sida qaalibka dad hash ah jilicsan tafaahada iyo maalayacnigu qiimo leeyahay marka technology-yadan iyo casrigan wuxuu soo saaray dhalinyarada hadda waxay noqdeen dhalinyaro mucaaq ah ama naafo ah Soomaaliyeed ku sheeg halka ka naafayna ma jirto laakiin nafsiyan ma naafooyi marka qof waxa soo baxay hash ah burbursan jilicsan masaa'ibka adduunyada aan dul qaadan karin iyo dhibaatooyinkeeda dadka aan dhex geli karin xataa in badan waa laga yaabaa aragtay dhalinyaro dadka ka urursan oo kooranaya cidna ma salaamo kama dhex galo ehelada ma barto waa hash oo qof jilicsan min daakhil wixii lagu yiraahdo qofan ka jawaabi karin waxa la weydiiyo ha iyo ma aan oran karin wuxuu rabo qof aan sheegi karin marka qaarkood dadkan casriga ma ku daalaysa war maxaad u baahantahay maxaad doonaysaa aan ku sheegi karin adarka dad doodayo oo xal taxdiidin karin maxal nisaa maxaa isku haysan horta wala nidayn gar qaadne xayl ka dhaxay marka kana sheeka dheer buu dabada u qabanaya sadad marba soo celinaysa oo horta ma soo duubo oo markaan masaladaas si u tilmaano dhow waxaynu leenahay markaan tawsiif ku sameeyno macal asaf shadiid xaad looga xumaado weeye guriyihii markaa waxa ku samaysmay wax la yiraahdo maqaal baa berdhow laga nashriyay internetka oo laga baari karaa إحذروا صناعة المعاق في بيوتكم أو في منازلكم. waxa guriga ku dhex samaysmay qof caafimaad qaba hadana curyaana caafimaad qaba xoog gawaad yaabtaa wadara koobiya soo dari maayo marada iska qaban maayo